السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي دمانتين سلام كديب شاكدنا المانتا يدين لو وداقيو waxaa ku dhacday wiil iyo gabar Soomaaliyeed waxaana ii soo diray wiil lagu magacaabo Saciid Yuusuf Warsame sidoo kalena wuxuu ii soo diray magacyada dadka sheekadani ay ku dhacday laakiin ma jeclaysan inaan idin la wadaago ama aan magacyadooda ka sheego meel babliga. بسم الله مقعيقه وسعيد يوسف ورسامة عرو شاكدان وحالة دها فلانواه وحاي كل عضي ويلي قبر شعيل لحمري وحينا آهايد سيدة ويلك وحالي لهذا وانفقود بمقع ويلك إنانتنا وحالي لهذا waxaan saaxiib ahayn wiilka muddo aad u dheer waxa uuna la sheekaysan jiray gabadhaas waxa ay isla soo dhigteen dugsiyeedkii hoose dhexe ilaa sare marka ay dhameysteen dugsiyadii ayaa waxa ay bilaabeen xiriir inay sheekaystaan ah way isku afgarteen inay sheeko wadaagaan ilaa waxay ahaayeen dad si wanaagsan isu yaqaaneen sheekadii baa la bilaabay waa la isfahmay si wanaagsan baa la isku jeclaaday maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa shaqo heshay inantii way soo wacday saaxiibkeed waxay u sheegtay inay shaqo heshay aad buu ugu farxay wuuna ugu hambalyeeyay waxa uu ku yiri waxaan kula wadaagayaa farxadda inantii waxa ay shaqaynaysay muddo dhan ilaa 2 sano inankiina shaqo ma helin habeenada kamid ah ayuu wacay jacaylkiisii markaasay ka qaban weyday in door ah ayuu ku celceliyay lama qabanayo message ayuu u reebay uu ku leeyahay abaayo see tahay miyaad xanuunsan tahay mase mashquul baa tahay waxay aragtay koolalka badan iyo message-ka u yaala way soo wacday waxay ku tiri maxaad isla waalaysaa maynagaaba wax badan kala maqnayn runtii wiilkii waxa ku dhacay isbedel wuxuu yiri maxaa dhacay abaayo raali noqo hadaan qaldamay سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح intaas wiilkii ma farxad gelin wuu dhibsaday waayo inanta aad buu jecel yahay inantii way ogaatay inuu ka xumaaday way raali gelisay isna wuu ka qaatay inta kadib wiilkii ayaa waxa uu u soo bandhigay inay isguursadaan maadaaba aan muddo badan sheekaysanay ayuu yiri gabadhii ayaa tiri haye laakiin fakar kalaan hayaa haye ii sheeg ayuu yiri waxay tiri Afrika iskuma guursanayno ee waxaan aadaynaa Yurub ka warantaas wuxuu weydiiyay sidee ku aadaynaa Yurub abaayo waxay tiri waxaan tagaynaa Turkiga halkaas baan ka galaynaa inankii uu yaabay wuxuu ku yiri waan ka soo tashanayaa ee Jaanis isi abaayo haye ayay tiri الرحيم الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر mar labaad waayahay ayuu yiri isagu aad buu u jecel yahay inanta runtii waxba kama diidi karo waxa la go'aansaday in la tago waa la tagay markii Turkiga la marayo ayaa inankii lacagtii lagu sii gudbi lahaa ka yara daahday inantii waxay tiri aboo ka waran haddaan sii tago anigu oo aad iga daba timaado يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح صح malahan laakiin xagee inoo balan ah waxay tiri Sweden okay ayuu yiri way tagtay maalmo kadib lacagtii ayuu helay wuuna ka daba yimid waxay ismoogayeen muddo 15 casho ah markuu soo galay ayuu isoo wacay markaas ayuu ii sheegay inuu soo galay dalka Germany waan soo dhaweeyay ayaamo ayaan wada qaadanay anaga oo habeen cashaynayna aniga iyo saaxiibkay ayaa waxa u soo dhacay telefoon mase waa jacaylkiisii markii la isnabdaadiyay ayay u sheegtay halka ay joogto laakiin waxay tiri abow in yar baan rabay inaan ku sheego igana raali noqo
isaga oo naxsan ayuu yiri dhib ma lahan abaayo ii sheeg macaanto markaasay tiri aroos baan gelayaa isbuucan aabahay ayaa nin isiiyay marka iga raali noqo jacaylku markuu yahay إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل wuxuuna ku yiri si wacan ila hadal macaanto waxay tiri abba waa sidaas aniga iga raali noqo runtii waxa ugu dambeysay isaga oo mobilka gacanta ku haya ayaa quraan lagu akhrinayay kadib wuu iska kacay wuxuu iiga sheekeeyay waxyaalihii ay isla soo mareen wuxuu yiri waxaan dareemayaa qalbi jab weyn isla hadal buuq ciriiri wuxuu ii sheegay in noloshiisu hadda ay ku jirto ciriiri saaxiibayaal arrintaas waxaa la kulmay saaxiibkay waana mahadsantihiin halkaas bay ku dhamaatay sheekadii Soomaaliyeey intaas waxaa ku dhamaatay sheekadii la ii soo diray wiilkaasna sida aan sheekada ka arkaynay dhamaadkeeda ilaa iyo hadda waxa uu sheegay inuu dhibaataysan yahay murugo iyo ciriiri fara badan uu dareemayo uu waayay jacaylkiisii intaas oo dhan la soo jabay ee uu la soo maray intaas oo dhul ah ilaa Afrika ilaa iyo Yurub ugu dambeyntiina dee ku soo gabagaboobay halkaas aad arkayseen marka wixii tala ah waan idinka rajaynayaa markastana aan ilaalino dareemada dadka sheekooyinkoodana la wadaagaya waayo waa dad ina la mid ah oo dareemadina oo kale leh horta wiilkaas waxaan leeyahay walaal marka koobaad Allah ha ku caafiyo waxay ahayd ba hadda sheeko dhamaatay ayay u muuqataa laakiin qofku hadduu mar qalbiga ka dhaawacmo way adag tahay sidoo uga soo kabsado sheekadu waxay ila muuqataa in wiilka oo kaliya ta uu wax jeclaa gabadhuna ay waqtiga ka luminaysay way adag tahay hadalkan wana dareemin karaa qofka inuu damqi karo marka la yiraahdo qofkaas waxba kulama uusan wadin waa wax yacni qof walba dhibaato ku noqon kara laakiin way iska muuqataa waayo haday daacad tahay ilaa maalintii ay iskuulka isla dhameynayeen waa iskuursan karayeen haddana labadii sano ee ay shaqaynaysay way iskuursan karayeen haddana maxaa ka sii dambeeyay aan safar galno ayay tiri walaw ay duruufuhu iska jiri karaan haddana waxaas oo dhan marmarsiiyo ayay ila muuqdaan wiilkuna waa naf wax jecel waan dareemi karaa qalbi wax jecel inuu wax walba u hogaansamayo ilaahay waxaan kaaga baryayaa mid ka khayr badan oo aad ku ilowdo inuu kuu sakhiro markastana intaad noqon lahayd ka wax dulmiyay adigu noqo ka dulman way markasta ilaahay wuxuu la jiraa kuwa dulman lama sajiro kuwa wax dulma waxaan qof kasta oo walaalkay ah ama walaashay ah uga digayaa fadlan qofka yaan lagu dangaarin oo qulubtooda yaan lagu ciyaarin qofka haddii aad u sheekaynayso si niyad ah ula soco oo ilaahay kugu og yahay haddii kale waqtiga ha ka lumin waayo labada qof haddii ay daacad isu yihiin waxyaabaha qaarkood marmarsiyo kama dhigtaan laakiin haddaad aragto qof cudurdaar badan waa qof beenaale ah khasab maaha labada qof inay isjeclaadaan inta badan qof uun baa saa'id wuxuu jecel qofka kale haddii uusan qofkaas rabin inuu been ku maaweeliyo ma aha waa inaad runta u sheegtaa adigoo aan marmarsiyo been ah meel la ka doonin caadi runta ugu sheeg waayo marmarsiyaha beenta ah waa khiyaano kale qofkuna wuu kugu fahmi karaa waayo attentionkiisa dhan ayaa mar walba adiga kula jira
mid kalena way jirtaa Soomaalidu sida ay u badan yihiin waxay ceeb u yaqaaniin waxaan ceeb ahayn inaad tiraahdo qofka kuma jecel ceeb ma aha laakiin waxa ceeb iyo dambi ah inaad been ku daldasho dadba waxay oranayaan ma qof dhan oo xayi ah baan oran karaa kuma rabo kuma jecel micnaheedu ma aha inuu qofkaasi daliil leeyahay ma aha inuu ka liito waxaaba laga yaabaa inuu dhinac walba kaaga fiican yahay laakiin dooqaaga ma aha marka u sheeg kaama helin ceeb ma aha gabadha waxaan leeyahay kollay taalo umaad dhigan wiilkaas cafiska dalbo qof baad noloshiisa ku ciyaartay oo niyad jabisay intaasoo waqti ayaad ka soo lumisay haddana waxaad rabtaa inaad mustaqbalkaaga dhisato oo aad farxad ku noolaato hawkam sidee ku dhacaysaa midaas adoo qof noloshiisa ku soo ciyaaray baad rabtaa inay noloshaadu fiicnaato ilaahayna cafis weydiiso walaashay wiilkaasna cafis ka dalbo waa laga yaabaa inuu ku cafiyo kollay dad fara badan oo iga aqoon badan ayaa klibkan dhageysan doona taladiinana waan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay walaal marka koobaad Allah ha ku caafiyo waxay ahayd baa hadda sheeko dhamaatay ayay u muuqataa laakiin qofku hadduu mar qalbiga ka dhaawacmo way adag tahay sidoo uga soo kabsado sheekadu waxay ila muuqataa in wiilka oo kaliya ta uu wax jeclaa gabadhuna ay waqtiga ka luminaysay way adag tahay hadalkan wana dareemin karaa qofka inuu damqi karo marka la yiraahdo qofkaas waxba kulama uusan wadin waa wax yacni qof walba dhibaato ku noqon kara laakiin way iska muuqataa waayo hadday daacad tahay ilaa maalintii ay iskuulka isla dhameynayeen waa iskuursan karayeen haddana labadii sano ee ay shaqaynaysay way iskuursan karayeen haddana maxaa ka sii dambeeyay aan safar galno ayay tiri walow ay duruufuhu iska jiri karaan haddana waxaasoo dhan marmarsiinyo ayay iila muuqdaan wiilkuna waa naf wax jecel waan dareemi karaa qalbi wax jecel inuu wax walba u hoggaansamayo ilaahay waxaan kaaga baryayaa mid ka khayr badan oo aad ku ilowdo inuu kuu sakhiro markastana intaad noqon lahayd ka wax dulmiyay adigu noqo ka dulman way markasta ilaahay wuxuu la jiraa kuwa dulman lama jiro kuwa wax dulmo waxaan qof kasta oo walaalkay ah ama walaashay ah uga digayaa fadlan qofka yaan lagu dangaarin oo qulubtooda yaan lagu ciyaarin qofka haddii aad u sheekaynayso si niyad ah ula soco oo ilaahay kugu og yahay haddii kale waqtiga ha ka lumin waayo labada qof haddii ay daacad isu yihiin waxyaabaha qaarkood marmarsiinyo kama dhigtaan laakiin haddaad aragto qof cudurdaar badan waa qof beenaale ah khasab maaha labada qof inay isjeclaadaan inta badan qof baa saa'id wuxuu jecel qofka kale haddii uusan qofkaas rabin inuu been ku maaweeliyo ma aha waa inaad runta u sheegtaa adigoo aan marmarsiiyo been ah meel ka doonin caadi runta ugu sheeg waayo marmarsiiyaha beenta ah waa khiyaano kale تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح intaas wiilkii ma farxad gelin wuu dhibsaday waayo inanta aad buu u jecel yahay inantii way ogaatay inuu ka xumaaday way raali gelisay isna wuu ka qaatay intaa kadib wiilkii ayaa waxa uu u soo bandhigay inay isguursadaan maadaaba aan muddo badan sheekaysanaynay ayuu yiri gabadhii ayaa tiri haye laakiin fakar kalaan hayaa haye ii sheeg ayuu yiri waxay tiri Afrika iskuma guursanayno ee waxaan aadaynaa Yurub ka warantaas wuxuu weydiiyay sidee ku aadaynaa Yurub abaayo waxay tiri waxaan tagaynaa Turkiga halkaas baan ka galaynaa inankii uu yaabay wuxuu ku yiri waan ka soo tashanayaa ee Jaanis isi abaayo haye ayay tiri الرحيم الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر mar labaad waayahay ayuu yiri isagu aad buu u jecel yahay inanta
runtii waxba kama diidi karo waxaa la go'aansaday in la tago waa la tegay markii Turkiga la marayo ayaa inankii lacagtii lagu sii gudbi lahaa ka yara daahday wuxuuna ku yiri si wacan ila hadal macaanto waxay tiri abbo waa sidaas aniga iga raali noqo runtii waxa ugu dambeysay isaga oo mobilka gacanta ku haya ayaa quraan lagu akhrinayay kadib wuu iska kacay wuxuu iiga sheekeeyay waxyaalihii ay isla soo mareen wuxuu yiri waxaan dareemayaa qalbi jab weyn isla hadal buuq ciriiri wuxuu ii sheegay in noloshiisu hadda ay ku jirto ciriiri saaxiibayaal arrintaas waxaa la kulmay saaxiibkay waana mahadsantihiin halkaas bay ku dhamaatay sheekadii Soomaaliya intaas waxa ku dhamaatay sheekadii la ii soo diray wiilkaasna sida aan sheekada ka arkaynay dhamaadkeeda ilaa iyo hadda waxa uu sheegay inuu dhibaataysan yahay murugo iyo ciriiri fara badan uu dareemayo uu waayay jacaylkiisii intaas oo dhan la soo jabay ee uu la soo maray intaas oo dhul ah ilaa Afrika ilaa iyo Yurub ugu dambeyntiina ay ku soo gabagaboobay halkaas aad arkayseen marka wixii tala ah waan idinka rajaynayaa markastana aan ilaalino dareemada dadka sheekooyinkoodana la wadaagaya waayo waa dad ina la mid ah oo dareemadina oo kale leh horta wiilkaas inantii waxay tiri abo ka waran haddaan sii tago anigu oo aad iga daba timaado يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح dhima lahan laakiin xagee inoo balan ah waxay tiri Sweden okay ayuu yiri way tagtay maalmo kadib lacagtii ayuu helay wuuna ka daba yimid waxay ismoogayeen muddo 15 casho ah markuu soo galay ayuu isoo wacay markaas ayuu ii sheegay inuu soo galay dalka Germany waan soo dhaweeyay ayaamo ayaan wada qaadanay anaga oo habeen cashaynayna aniga iyo saaxiibkay ayaa waxa u soo dhacay telefoon mase waa jacaylkiisii markii la isnabdaadiyay ayay u sheegtay halka ay joogto laakiin waxay tiri abow in yar baan rabay inaan kuu sheego igana raali noqo isaga oo naxsan ayuu yiri dhima lahan abaayo ii sheeg macaanto markaasay tiri aroos baan gelayaa isbuucan aabahay ayaa nin isiiyay marka iga raali noqo jacaylku markuu إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي دمانتين سلان كديب sheekadan maanta idin la wadaagayo waxay ku dhacday wiil iyo gabadh Soomaaliyeed waxaana ii soo diray wiil lagu magacaabo Saciid Yuusuf Warsame sidoo kalena wuxuu ii soo diray magacyada dadka sheekadan ay ku dhacday laakiin ma jeclaysan inaan idin la wadaago ama aan magacyadooda ka sheego meel babliga بسم الله مقعيقو وسعيد يوسف ورسامة عرو شاكدان وحالة دها فلانواه وحاي كدعضي ويلي قبر جعيل لحمري وحينا آهايد سيدتان ويلك وحالة يراهدا
waan ka gudbay magaca wiilka inantana waxaa la yiraahdaa waxaan saaxiib ahayn wiilka muddo aad u dheer waxa uuna la sheekaysan jiray gabadhaas waxa ay isla soo dhigteen dugsiyeedkii hoose dhexe ilaa sare marka ay dhamaysteen dugsiyadii ayaa waxa ay bilaabeen xiriir inay sheekaystaan ah way isku afgarteen inay sheeko wadaagaan ilaa waxay ahaayeen dad si wanaagsan isu yaqaaneen sheekadii baa la bilaabay waa la isfahmay si wanaagsan baa la isku jeclaaday maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa shaqo heshay inantii way soo wacday saaxiibkeed waxay u sheegtay inay shaqo heshay aad buu ugu farxay wuuna ugu hambalyeeyay waxa uu ku yiri waxaan kula wadaagayaa farxadda inantii waxa ay shaqaynaysay muddo dhan ilaa 2 sano inankiina shaqo ma helin habeenada kamid ah ayuu wacay jacaylkiisii markaasay ka qaban weyday in door ah ayuu ku celceliyay lama qabanayo message ayuu u reebay uu ku leeyahay abaayo see tahay miyaad xanuunsan tahay mase mashquul baa tahay waxay aragtay koolalka badan iyo message-ka u yaala way soo wacday waxay ku tiri maxaad isla waalaysaa maynagaaba wax badan kala maqnayn runtii wiilkii waxa ku dhacay isbedel wuxuu yiri maxaa dhacay abaayo raali noqo hadaan qaldamay